wafdigii ballaadhna ee ka socday isku tagga imaaraadka carabta ee ku howlanaa mashruuca biyo-gelinta Xumbuweyne ayaa maanta ka ababaxay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa iyagoo intii aanay wafdigani dalka ka ambabixin kulan la sii yeeshay wasiirka wasaaradda biyaha ayaa waxa kulankaasi ka warbixiyay mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya mashruuca biyo-gelinta Xumbuweyne waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan imaaraadka mashaariicda isugu jirta biyo-gelin ama soo gaarsiinta Hargeysa iyo laba isbitaalo midna barco laga dhisay midna beerku ay kormeerka soo mareen maalintii dhawaadan waa tii furitaankii mashruuca biyaha Xumbuweyne waxa tii loo sameeyay xafladii ahayd launching ceremony mashruuc si dhaqsaabo u bilaabmaya oo maanta laga bilaabo waa bilow ay xisaabsan tahay maanta runtii waxaa keen wasiirkii biyaha waxaana isla meel dhigeen sida barnaamijku u soconayo iyo siduu u kala duwan yahay waqtigiisa intaas ayay isla afkarteen